ما بين 30 و20 يعني صدن لباتن ودحيس waxaan haystaa marka waxa la yiraahdo teesara min ashibi oo waxa igu qoran 27 sano laakiin waa foo way marka waa wax ma aragtay aan xaqiiq ahayn oo ana marka waxaan u samaystay marka iskoolka galaya baan ka baqay in la yiraahdo da'daada looma ogola nin weyn baan ahaa siyaasan u yaray marka suufi عدينا ما يسقط مرة تنسريه ونص صار واقناع جالس في وحولي لا حقيقة شري لا حقيقة وبده ورقهم قرب بدنا وبده هم طاي حقيقة مركا أراك وقرني أراك ما بين 40 و30 أفرتني يصدون أنت والحيسات يقول فهمت ستي شيء لو يصد جير معنا مرة حنكر أولياء أولياء وحكر كل شيء بالدورة فقاسا حنكر ما أفكر الله ترمي ولا شام أنا مربان رشام مركا والد كي بعد يوشى وقتل حقيقة أنت أهل ما هي وحقول لي ما تسافر بقول أفعرابي وحقول ما سافريسي ما سافريسيد ما دعي كرت waxaan ku yiri taasi aday kugu xidhanta hay'adda adiga mas'uulka meesha u jooga adiga weeye laakiin aniga waxaad i weydiisay dhalashadaydii waana taa anigu markaa waxaan goostay inaanan u jirin waxaan dhahay isbedesho dee isa fadhi kaliya been iyo run ku sheegaysa markii hore been noo sheegtay ku odhanaya qariya qarbaan isla joogsanay ما تسافر بيقول لي قالن كي تصاب دبدي مسك ugu garaacay waxaan meesha ugu imado fadhiya nin jaamacadana ku socda ka soo baxay oo safiirka la fadhiya oo afrikaana Soomaali ma huwa afrikaan ka kale qolo oo hab galan muraad marka isoo leeyahay u yibi u jooga anigu markii ninkan meesha fadhiyaan arkay waaban dhibsanayo waxaan la kana maxaa ku keenay markii uu أنا هذا اللي يسكت عليني وأنا حقيقة كلام ما هيو وحاجة هذا أذيك يكون طالع إسلوي ما كل ما سافرت كان أيام نيكي نصار حقنا قدرة الجبار نيكي وحولاني جامعة الإسلامية كصباح جامعة الإسلامية أيام كصباح كان له وجه أرضها تشوف توح 10 دقائق إنه صدق سنة كويني بعشر دقايق مركو رغف كجامعة عاد سوق لكن وحنكون شيء يا أبو أنت اللي قلتولي صدق وكوذ وهوي صدق كل وكوهوي وأنا جاي يرجع جواوي أنا بهدك الصبح ما أنا ذيك شد كان يكون حكيني ميت كلام كل شيء ساعات السفير حتى يجوا سوق أقبلين iyagu haday soo aqbaleen adiga maxaa ka khusay maxaad u hortaaganta asoo ninkan inuu wax barasho u socday ya maxaad u soo jiraysa wax barashadiisa ila iyagu ogolaade markaas uu xaqiiq buusan ii sheegay run buusan ii sheegay hadduu run ii sheegi lahaa ma joogsaday waxaan ku ilaalin waxaan runayn kuma sheegin markaasaa ninkii waxaa ku dhacday ilaahayga qaadirka ah hadalkii ninkii ayaa ku noqday yani miisaan daqiiqadii buu isbedelay wuxuu yidhi gabadhiiba u yeedhay gabadhii sekretariyadda u ahayd ayuu u yeedhay wuxuu ku yidhi markaa waxaan wataa baasaboorkii waan soo qaatay waa maalintii labaad wuxuu yidhi baasaboorkan qaad qunsulka u gee qunsulka sacuudi xafiis hoosuu fadhiya ha ku dhufta fiisadii mid maxaa la yidhaha halkan laga yidhahaa gakdiyaanka miyaa la yidhaha ninka adeegaha xafiisyada ya midka dee hawlaha ka qabta xafiisyada waxay shaaha iyo adeegyada usoo qabta halkan maxaa laga yidhahaa serveur ya hade saas wey gakdiyaan miyaa la yidhaha bas maxaa la yidhaha may ka wuxuu kala gudbiya
maya waa ninka maalan xafiiska waa furan yahay nin baa xafiisyadan wixii looga baahan yahay loo dira waraaqaha iyo meel geegeeya oo shaaha iyo keenkeena xafiisku ka adeegaa ka gudub aduu kiiba u yeedhay gacan yare waa gacan yari wuxuu ihi baasaboorkan qaad ma garatay ma waxaa marka uu safiirku marka uu qunsulku ku dhufto fiisada ku dhufto adigu tag waxaa tagtaa meesha la yidhaahdo airline Somali airline ticket uga soo go waxaana u sheegtaa waa arday jaamacaddiina waa furan tahay yani falaydka ugu horeeya ha lagu soo qoro anigana wuxuu yidhi meelaha shaah ka soo cabcabo xoogaa yar kadib lagu soo noqo banaankaan iskaga baxo iska soo shaahshaaho anoo dee markaa masruur ah wixiiba way soo dhamaadeeno waxaan 2 saacadood gudahooda ahayn yaa tigidhkiila lasoo jaray fiisadiina lagu dhuftay baasaboorka gabadhii ii haysa 2dii yaanu waxay tii baasaboorkaagi waa kan waa fiisaysan yahay tigidhkaagii oo ah muqdisho madiina munawara na waa kan waxaanad ku qoran tahay berri mooya saa dambe nabaday waa mahadsantiin baan ku jeebkaan gashay markaa waxaa jeebka iigu jiraa baasaboorkii iyo warqaddii la ii soo diray intii baan isku haystaa intubana waa ka mamnuuc wasaaradayda iyo dalka gurigii baan tegey baan meel dhigtay dee bal afwaakane meylaka aamee buu ninkii reer baydhabo afwaakane meylaka aame wixii lagu cuni lahaa awey buu afwaa la hayaa bal fiisadii laysii oo tigidhkii la ii jeriy bal ninka airboortkii xamar tegaya yaa airboort aadan cabdulla cismaan ka baxaya waa kee xag shaqaalaan ka ahay xagna lamaba ogolo waa mamnuuc dheerkaa dheer oo dhulkaa dheer bay noqotay hor maxaad yeeshaa waxay ila noqotay waxaan ihi horta waxaan tegay meel qofka dhoofaya laga tallaalo oo irbad lagu dhufto warqad la siiyo tallaalan yahay waxaan tegay bangiga oo lacagaan haystay baan dollar ka sarriftay bukad mani baan u baahanaha bukad manigeygii lacagtaydii oo aan sarriftay oo dollara warqaddii caafimaadka tigidhkii baasaboorkii oo fiisaysan intii anoo isku haysta aan jeebka la galo aaba dhal bal adugu meel ku tag wasaarad baan ka tirsana shaqaalaan ah war maxaad yeeshaa tana waxay igaga gooday aeroboortka iska nasiibi calafkaagaad qabtaa oo intaasa waxba lagu weydiin muddo kadib baa haddana taladii bedel waxaan war waa taas waa qalade horta maad hubisid bal horta wasaaraddan aad ka shaqayso horta maad tijaabisid ama waxaad ku odhan kartaa saas made aduu iska tijaabi waxaan goostay inaan horta aanan baqacararin anoo aan halkan waxba kala kulmin safaaraddii waxaa dhibi wasaaraddii xafiiska waraaqaha soo gala iyo waraaqaha baxay joogaan waa madaxka ah gabdhaha ila shaqeeya waraaqahan geegeeyaa xafiiska wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo anaa u geegeeya waliba waraaqaha importanka ah intii warqaddana aan sugayay ayaan waxaan midbaa baadiyaha wax ugu yidhi waxoogaa bokod mani aan ku siinayaa imo halkaasaan kasoo helay 1,000 shilin oo Soomaali ah intii aan ku maqnaa ayaan gabadhii la shaqaynaysadoo meesha ahba mid baan furihii u dhigay boostaan haysta furaheeda boostaan tagaa meel baan ku leenahay wixii kusoo dhacana kasoo gabadhaas u dhigay waxaan furahan qabo qof kale ha u dhiibi waxaan rajaynayaa marka waa intaan jaamacaddu ii soo jawaabin wax warqadoo khuseeya hadday yimaadaan qof kale iisan arkin iyadoo i haysaanu tan aan markaa ku shaqaysanayo ay ugu salaanta waa tiri laatan warqadaada aduu waan soo kacay
intii aan maqnaay hawshaa ku maqnaa ayaa ninkii agaasimaha guud ahaa ee aanu isbaranay meesha aan wada shaqayn jiray baa la bedelay markaasaa waxaa la keenay mid wasiir ku-xigeena kaasi nin sibila buu ahaado caadiya mid wasiir ku-xigeenahoo kacaankii ka tirsan oo mareexaanna ah weliba markaas balaada ninka hore markaa meesha joogay wuxuu ahaa nin leel kasaa mid mareexaankaa meeshii fadhiya mareexaan kale markaa dadka waxay u arkaan dee ninkaan irsaaqad lala maagin inuu nimankaa la dhiso war kuuma kala duwanee intaan isa soo maqiiqay anigoo jeebka ay igu jirtay intaa aan kuu sheegay baasaboorkii oo fiisaysan iyo tigidhkii iyo warqaddii sacuudigu ii soo diray iyo tii aan caafimaad ku soo goostay iyo lacagtii bukad intiiba waan wataa aan ku garaacay kii gabadh baa sekataariyadoo aniga ima celinayso dee waxay sidaa waraaqay waxay ugu sidaa way uga furtay waan soo galay war yaa caatay war maxaad wadaa maanta bugu waxaan ku iri sacaadata wasiir waxa aan wado inta aanan kuu sheego in kuu sheegaan doonayaa albaabkaa iga xidh waxaan doonaya inaan cid igu soo gelin markaasuu wala sirtii ugu weyneyd maanta kacaanka ayuu wadaa markaasuu ka xidh aduu hoosta ka xidh handaraabkii wanoo sangish waxaa la fadhiya mid sekataariyo u ah wasiirka isagoo wasiir ku-xigeenkii wasiirka mid sekataariya oo reer xamarka cadcad ah oo musiibadii adduunka haddii musiiba joogto isaga ay tahay waxaan aqaano de khayr lahayn markaasaan leeyahay maanta inaadan faa'iidaynin waxaa kuu caddaynaya hebel baaba meesha fadhiya markaan albaabkii soo xiday yuu yihi haye hadalkan umaan naqin warqaddii jaamacaddu iisoo dirtay baan u dhiibay saa intuu u kala bixiyey waana carabiga yaqaana isaguna yuu akriyay buu waana catay adigu mawadaad baad ahayd adigu sidaadoo mawadaad baad ahayd markaasaan waad iska dahay waad ujeedahay raggu wax walba waya markaasu uu yidhi warqaddan waxaa ku qoran kii uu la hadlayaa jaamaca alislaamiya waxay leeyihin ninkan soo gaar jaamacadda deg deg u soo gaar markaa kiis baa wuxuu yidhi waa sahal waa arrin sahlan waa munaafiq gaboobay waan aqaan wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare ayaynu codsi u weydiinaynaa deedna iyaga ogolaansho soo siinaya ogolaansho markay soo siiyaan khalaas wuu si sahla buu ku baxaya kiibaa wuxuu yidhi lan dad wax u kala qarsanay war kuwaas haddaynu u dirno irsaaqad isagoo hadduusan ammaan hela isagaa nasiib sidaad ula xidhiidhay baaba hortaalo waan ogno inta warqada aan anigu hayo xafiiskan aan joogtaan laga riday waxbarasho dad ay u diideen oo yidhaahdeen ma jirto tiraba male war kuwa haddaynu u dirno ninkani waa gudbaya aniga waxaa ila fiican ninka rag dhalinyaro oo xafiisyadana buuxaanba way iska taagtaagayihin markay ku caajisaan meesha hamaansadaan bay sigaar kashataan istaa wax ay qabtaana ma jirto marka ninka dhalinyarada hadduu waxbarasho uu helayaba inaan waktigiisa lagu cayaarin yani waa aada u jeclahay markaasu wuxuu weydiiyey anigii wuxuu weydiiyey waree caatay haddaanu shaqada kaa joojinno adigu ma isdaberi karaysaa macnaha waxaa weeye tigidh ma haysataa baasaboor ma haysataa qarash ma haysataa dee nin isdaberi kara ma taha marka ilan wasaaraddu waxba kaa bixin mayso markaasaan laba xiniyood intaan la soo baxay oo nin waxaan ku iri jaalla markaa la odhan jiray jaalla wasiir mar kasta dowladdu waxay dirtaa daday iyadu uga soo shaqaysay waxbarasho banaanka oo fiisada u raadisay oo tigidhada u saarso oo baasaboorka u raadisay oo dirto anugu haddaan soo helooday oo aan waxba idinkaga bixin dhib yaa
ميدان أما بحين كرين مركز الشرع قلنا ما أقرأ هذه هو الشقالة إلى أن نقدرنا وصار ده سقابر سن وحلا على وح أنا عطسي بانو دري كرنا يجا هذا نقدرنا ولا هذا نبحين حسن قوة كرنا أنا سامح أقول أو ساعات ويصير حديم أنا قام بحو الشغل يجي وتسان عرور يشربان له يا مصروفة يا هيش دموج وأنا هو إما كأدرتين إذا كنت أدرتين أنا إيرم ده هاي وحبرصة أو درتين لعقته ذي وصعته خيره دي بقى عرور دي وقات أنا ميان حق لهين كاسي تيجوا ماشى سمريان أو يصور تقش أو وسالة دادرتين marka waa nin la diray oo la ogolaaday laakiin adiga hadaan shaqada ka joojino xaqna uu yeelan mayso laba jeer markaan si isku celinay anigu waa sidii hore dhaamo kiina uu waran ku dhufto isagiiba uu yiri meesha hadaynu u dirno ninkan ma dhoofay ayaa kamaleelka lagu soo yiri wasiirkii baa soo galay labada xafiis iska soo horjeeda isagoo warqadaydii أنا ودي بيصير عن تقوهاي يعني سجى كيس تاريخها ويصير كهذا بحال يصير كحجانك ويصير كي بودي بالقبضة دي سلامتي وهو يصير حلو وراجعهم وحاسبوا على نكلة عبد الله فارح قاتي وحبرشة وحلوصة وقال هذه ودك السعودي